iyadoo dunidu ay qaati ka taagan tahay hubka qoryaha iyo gantaalada isugu jira ayaa waxaa soo baxaya hubkii ugu layaabka badnaa abid. 2,000 oo muwaadiniin Mareykan ah ayaa madaxu xanuunay ilaa ay la waasheen qaarna ay u dhinteen. baaritaano la soo bandhigay toddobaadkii hore ayaa lagu sheegay in Ruushku uu ka dambeeyay. waxa uu ahaa weerarkii ugu layaabka badnaa dunida oo aan dhiig ku daadan, waxaana loo adeegsaday hub casri ah oo Putin uu soo saaray kaasoo ah madax xanuun. haddaba hubkan casriga ah iyo dadkii u waashay oo ka sheekeynaya ayaa halkan kugula wadaagi doonaa muuqaalkana sii faafi. gabadhani waxay ka tirsan tahay FBI-da Mareykanka. waxay ku nooleed gobolka Florida ee dalka Mareykanka sida ay sheegtay. subax aroor hore ah iyada oo isku diyaarinaysa inay shaqadeeda maalinlaha ah u kala hado ayay sheegtay in hal mar ay la kulantay arrin la yaab leh. iyada oo daaqada gurigeeda ku cabaysa kafee, sida ay sheegtay waxa ku dhacay madax xanuun iyo wax u muuqda in maskaxda laga garaacayo. waxa lumay xusuusteeda iyo ogaalka maskaxdeeda ilaa ay u muuqatay qof waalan. in ka badan 2,000 oo Ameerikaan ah ayaa subaxaasi iyo subaxyo kale oo ka horeeyay la waashay madax xanuun sida ku dhacday gabadhan oo FBI-da ah. xataa qaarkood ayaana u geeriyooday iyadoo aan la arkin waxa ku dhacaya dadkaasi. muwaadiniinta Mareykanka mid kasta mar ayuu madaxa qabsanayaa, dabadeedna waalanaya ama dhimanaya. wax lala yaabay ayay noqotay arrintaasi oo dunida aan hore looga arag. Mareykanku waxa uu isku howlay baaritaanka waxa dadkan madaxa ku dhufanaya oo aanan la arkayn iyo sababta ka dambeysa inay waashaan dadka Mareykanka halka qaarna ayba u geeriyoonayaan. baaritaano kadib waxaa soo baxay dadka xanuunada maskaxda ay ku dhacayaan inay yihiin kaliya diblomaasiyiinta Mareykanka iyo saraakiisha FBI-da ama sirdoonka, taasi oo muujinaysa in qorshe la maleegay uu yahay. waxaa cajiib ah in la ogaaday in sanadkii 2016 uu dhacay falkii ugu xumaa oo sidan oo kale ah, markii safaaradda Mareykanka ee Kuuba dhammaan dadkii ku sugnaa ay madaxa ka wada jiradeen, isla markaana waali iyo dhimasho ay ku sababtay iyadoo lagu muransanaa waxa ku dhacay diblomaasiyiinta Mareykanka. falkaasi oo lagu magacaabay Havana Syndrome ayaa baaritaankiisu ay bilaabeen hay'adaha dabagalka Mareykanka gaar ahaan sirdoonka Mareykanka. bilowgii sanadkan 2024 maalmo ka hor ayaa lagu dhawaaqay baaritaanka musiibadii ay ku dhamaadeen diblomaasiyiinta iyo sirdoonka Mareykanka. barnaamij 47 daqiiqo ah oo la baahiyay bilowgii toddobaadkan tagay ayaa lagu soo bandhigay sababta ay dadka Mareykanku maskaxda uga waasheen, qaarna ay u dhinteen sabab aan la garanayn. waxaa la ogaaday inuu ahaa weerar aan hore loo arag oo Ruushku ku soo qaaday sirdoonka Mareykanka iyo hub casri ah oo caalamka ku cusub. waxaa cajiib ah sida Ruushku uu ku sameeyay hub dadka maskaxdooda loogu daadanayo iyadoo aan loo jeedin. hubkan oo dunidu ay la yaaban tahay ayaa lagu sheegay inuu yahay laser, kaasi oo lagu weerarayo dadka maskaxdooda isla markaana shuuca ku furaya maskaxda iyadoo aan jirka kale dhaawac gaarsiin. qofku isaga oo gurigiisa iska jooga ayaa madaxa laga qabanayaa ilaa uu lumiyo xusuusta isla markaana la waasho haddii uusanba u dhiman. sheekadan cajiibka ayaa baraha bulshada qabsatay, waxaana dadku ay ka welwelsan yihiin in weerarka aan dhiigga ku daadan ay halis ugu jiraan xilli kasta. bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag muuqaalkana like star oo sii sheer garee.